xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay shirka ka socda magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ee maanta furmay. warkaasi waxa Hargeysa ka soo diray Faisal Viva. qoraalkan kooban ee ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Somaliland isla markaana uu ku saxayay afayeenka guud ee xarunta madaxtooyada Maxamuud Warsame Jama oo nuqul ka mid soo gaaray qolka warqabadka telefishinka Somali Cable oo ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa hamid u dhigan sidan dabaaldega munaasabadii 26 June sanada 2018 madaxweynaha Somaliland iyo shirkudoonka guurtida iyo wakiiladu waxay cadeeyeen in Somaliland diyaar u tahay xabad joojin. xukuumadda Somaliland waxay hore u soo jeedintii qaramada midoobay iyo beesha caalamka ee xabad joojinta Tukaraq iyadoo dhulkeeda baa lagu yiri war-saxaafadeedkan 70 kilomitir gudaha loogu jiro looguna dagaalamayo xadkeeda. waxaa sidoo kale isla war-saxaafadeedkan lagaga hadlay ergadii dhawaan tagtay magaalada Garowe xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. waxaana lagu yiri ergadii Garowe tagtay waxay ahaayeen ergeys iskood isku xilqaamtay xabad joojin martiqaadna ka helay dhigooda Garowe oo hore u yimi magaalada Hargeysa. waxaa sidoo kale war-saxaafadeedkan lagu sheegay in ciidamada Somaliland iyagoo ka duulaya daris wanaaga kana fogaanaya dhiig daata iyo sidoo kale ilaalinta doorka nabadda ay dulqaad ku degan yihiin Tukaraq oo ah gudaha Jamhuuriyadda Somaliland. dandaansi iyo duulaana may qaadin xad dal kalena kuma socdaan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan oo tiraba dhowr qodob ka koobnaa ayaa sidoo kale lagaga shirka maamul goboleedada Soomaaliya uga furmay maanta magaalada Brussels ariga dalka Belgium. waxaana lagu sheegay inuu shirkaasi yahay mid u gaar ah Soomaaliya mana quseeyo baa lagu yiri war-saxaafadeedkan Somaliland wuxuuna uu la mid yahay shirarka ay ku qabsadaan Muqdisho iyo Garowe. waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu sheegay dhawaan in madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi u gudbiyay golaha wakiilada Somaliland xeerka doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha kaasoo golaha wasiiradu ansixiyay. xeerkaasna waxaa soo diyaariyay baa lagu yiri war-saxaafadeedkan komishanka doorashooyinka qaranka iyadoo ay kala qayb galeen asxaabta qaranka garyaqaanka guud iyo sidoo kale ururada rayidka ee Somaliland. xeerkaasi oo golaha wasiiradu ku sameeyeen kaabis iyo wax ka bedel ku salaysan qoondada haweenka iyo beelaha gabooyo loo asteeyay. xeerkaasi kuma qeexna baa lagu yiri war-saxaafadeedka lagumana kordhin lagumana kaabin saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada. waxaanu hor yaala golaha wakiilada si ay waajibaadkooda dastuuriga uga gutaan dooda saami qaybsiga kuraasta wakiilada iyo qaabka qaybintiisuna xildhibaanada ka hadlay golaha ay ka tirsayin ayay u taalaa. ugu dambeyntii waxa war-saxaafadeedkan lagu yiri madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marnaba ma soo jeedin in sidii hore lagu galo doorashooyinka golaha wakiilada mana shaacin saami qaybsiga kuraasida gobolada. xukuumadana waxa ka go'an xaqiijinta geediga dimuqraadiyadda ee doorashooyinka waxaana xil ka saaran yahay baa lagu yiri war-saxaafadeedka gunaanadkiisa qabsoomidda doorashooyinka oo xilligoodii ku dhaca. Faisal Maxamed Aadan Faisal Viva TV caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.